Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkani waa Balad Media. Haddii aad ku cusub tahay subscribe saa, sidoo kale like, share, comment. Beesha caalamka ayaa dadaal dheer kadib ku guuleysatay in shir isugu keento madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada. Shirkaasi oo maalinta Sabtida ee berri ka dhacaya teendhada Afisiyoni, sida ay ogaatay Balad Media, isla markaana ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah maamul goboleedyada. Shirka ayaa ah mid aan rasmi ahayn, waxaana hordhac u yahay shirka wadatashiga qaran ee looga hadloodayo arrimaha doorashada. Shirka ayaa imaanaya ayada oo la aqbalay laba ka mid ah shuruudihii adkaa ee ay wateen madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Madoobe, kuwaasi oo kala ahaa: kow, ajandaha shirka. Axmed Madoobe iyo Deni ayaa doonaya in ka hor shirka wadatashiga laga wada hadlo ajandaha shirka. Qodobkan ayaa muhiim u ahaa Deni iyo Axmed Madoobe oo doonaya in ajandaha lagu soo daro weerarkii ay ciidanka dowladda 19 Febraayo ku qaadeen dibadbaxayaasha Muqdisho iyo musharaxiinta madaxweynaha. Ilaa Soomaaliya waxay dooneysay in laga hadlo kaliya arrimaha doorashada. Deni iyo Axmed Madoobe ayaa sidoo kale doonaya in laga hadlo awoodda Farmaajo in uu saxiixo warqad ay ku sheegeen inuu wareejiyo maadaama muddo xileedkiisa dhamaaday. Qodobka labaad ayaa ah Axmed Madoobe iyo Deni ayaa muddo ku adkeysanaya in beesha caalamka ay goobjoog ka noqoto shir kasta oo dhacaya, ayaga oo sheegay in aysan aamini karin madaxweyne Farmaajo. Dhowr jeer oo horeyna ay beesha caalamka sameysay dadaallo ay ku dhacayaan shirar ay goobjoog ka tahay. Waxaa xagaldaaciyay filla Soomaaliya, taas oo horseeday in marar badan ay guuldareystaan dadaalada wada hadallada. Sida aan xogta ku helnay, shirka Sabtida dhacaya ayaa looga hadlayaa kaliya ajandaha shirka weyn. Waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaan doona wakiilo ka socda beesha caalamka, taasi oo ka dhigan in la aqbalay laba ka mid ah dalabyadii Axmed Madoobe iyo Saciid Deni. Axmed Madoobe iyo Saciid Deni kuma guuleysan wax kasta ay rabeen, waxaana jirta in ay hore ugu guuldareysteen mid ka mid ah shuruudihii ay ku xireen in dib loo bilaabo wada hadallada. Ilawareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Balad Media u sheegay in wakiilada beesha caalamka ay diideen dalabkii Axmed Madoobe iyo Saciid Deni ee ahaa in Farmaajo uusan shir gudoomin wada hadallada, una sheegeen inay shuruudahaas ka tanaasulaan, taas oo ay aqbaleen. Halka aad weli nagala socotaan waa Balad Media, waxaan idiin soo gudbinayaa anigoo ah Juuq Yare. Waxaa weli ay dood ka taagan tahay qaabka loo sugayo amniga shirka saacadaha soo socda ka dhacaya teendhada Afisiyoni ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada, ayadoo aan weli farsamo ahaan la isku fahmin. Xog aan helnay ayaa sheegaysa in inkasta oo mabda ahaan la isku raacsan yahay in Amisom sugto amniga guud, haddana ay dood ka taagan tahay ilaalada gaarka ah ee madaxda la galaysa goobta shirka, taasi oo weli laga wada hadlayo. Wararkii ugu dambeeyay ee na soo gaaray ayaa sheegaya in laba kulan oo saraakiisha Amisom iyo qaramada midoobay ee qaabilsan sugitaanka amniga shirka ee saacadaha soo socda dhacaya ay si gaar ah ula kala yeesheen saraakiisha amniga filla Soomaaliya iyo Jubbaland iyo Puntland. Aan weli heshiis rasmi ah looga gaarin qaabka loo sugayo amniga teendhada madaxdu ku shirayso. Waxyaabaha weli aan la isku raacin waxaa ka mid ah tirada ilaalo ama ciidan dhar cad ee qolo kasta loo ogol yahay inay teendhada shirka la tagto. Saraakiisha Amisom ayaa wada dadaal la isugu keenaya labada kooxood ee kala matalaysa filla Soomaaliya iyo Axmed Madoobe iyo Saciid Deni, si ka hor inta aan shirka saacadaha soo socda barqanimada uusan furmin, looga heshiiyo qaabka ugu habboon ee amniga gudaha loo sugayo, iyadoo si guud looga mideysan yahay in amniga guud ay Amisom la wareegto. Madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa ka aamin baxay Farmaajo wixii ka dambeeyay markii ciidamada dowladda ay hoteelka Maayda ku weerareen madaxweynayaashii hore ee dalka 19 Febraayo, ayaga oo sidoo kalena rasaas hooyay shacab si nabdoon dibadbaxayay. Waxayna aaminsan yihiin in Farmaajo ay wax kasta ka suurtoobaan.